wargeyska Bloomberg oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa maanta daabacay warbixin ciwaan looga dhigay Israel waxay qorsheynaysaa saldhig cusub inay ku yeelato biyaha badda cas si ula dagaalanto Xuutiyiinta dalka Yemen. Wargeysku wuxuu soo xiganayaa mas'uuliin ka tirsan Somaliland iyadoo dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Iran uu sii xoogeysanayo. Wuxuu wargeysku sheegay in Israel si aamusan ay u qorsheynayso inay dhisto saldhig militari oo ku yaala afaafka hore ee biyaha badda cas, kaasoo u ogolaanaya si toos ah inay u beegsato mid ka mid ah kooxaha ugu muhiimsan ee weli taageerada ka hela dowladda Iran, waana Xuutiyiinta dalka Yemen. Wargeysku wuxuu yiri qorshuhu wuxuu la xiriiraa Somaliland iyo gacanka cadmeed. Israel ayaa si rasmi ah u aqoonsatay madaxbannaanida Somaliland bishii December 26 sanadkii ina dhaafay. Wargeysku marka wuxuu yiri hadda waxay Israel qorsheynaysaa iskaashi dhanka amniga inay la sameeyso iyo mid istiraatiijiyadeedba Somaliland, iyada oo la doonayo suuragalnimada in saldhig laga dhiso dhanka iyo magaalada Berbera, lagana yaabo saldhigaasi inuu qarsoodi noqdo sida uu wargeysku sheegay. Saldhigaas oo noqonaya kii ugu horreeyay ee laga dhisay xeebaha Somaliland sida warbixinta wargeyska ku xusan. Wargeyska ayaa marka wuxuu waraysi u la yeeshay wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Khadar Hussein Cabdi. Wasiirka ayaa wuxuu yiri dhanka amniga waxaan yeelan doonaa xiriir istiraatiiji ah oo ka kooban arrimo badan. weli kama aanan wada hadlin haddii ay noqoto saldhig military, laakiin mustaqbalka arrintaasi waan falanqayn karaynaa, sidaas ayaa uu yiri Khadar Hussein Cabdi sida wargeyska uu baahinayo. sida ay sheegeen marka laba sargaal oo ka tirsan Somaliland oo wargeyska uu soo xigtay kuwaas oo aan magacooda la sheegin, Somaliland ayaa waxay u ogolaan kartaa Israel inay ururiso xogaha dhanka sirdoonka iyo inay fuliso howlgalla ka dhana Xuutiyiinta dalka Yemen. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa marar badan weerar waxay ku qaadeen gudaha Israel iyagoo adeegsanaya diyaarada daroonisa iyo gantaalo, waxaanay ku beegsadeen magaalada Haifa, magaalada Rashrash iyo sidoo kale magaalada Tel Aviv. dagaalka soo bilowda marka 28 bishii February ayaa laga yaabaa inuu arrintan sidoo kale saameyn ku yeesho. Saameynta dagaalka 12 maalin jirsaday durba waxa laga dareemayaa dhanka iyo shidaalka iyo sarukac ku yimid maadaama 20% halkii saliidda dunida ay ka soo gudbi jirtay Iran ay ku hanjabtay gabi ahaan inay xirayso. Warbixinta wargeyska waxaa sidoo kale lagu xusay meelaha suuragalka Israel ay daneynayso inay saldhigan ay ka dhisto, waxaana lagu sheegay inay tahay dhulka buuraha ah ee qiyaasii 100 kiiloomitir galbeed kaga beegan magaalada Berbera. Berbera waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee sida weyn ee dowladaha reer galbeedka u daneynayeen mar uun inay saldhig ka sameystaan. Mar waxa aad u daneynayay Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka, xitaa Mareykanka. Haddana warbixintan ayuu wargeyska daabacay. Mas'uuliyiinta Somaliland faahfaahin dheeraad ah arrintan kama aysan bixin. haddii ay ka hadlaana waan kula wadaagi doonaa insha Allah. Like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. Xogaga iska cabinta ee Xamaas ayaa maanta waxay soo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan hoggaanka cusub ee Iran. Hoggaankan ayaa waxay sheegeen xogagu inay rajeynayaan inuu wax ka bedel ku sameyn doono qaabka loola dagaalamayo Mareykanka iyo sidoo kale Israel. Xamaas ayaa sheegtay inay u rajeynayaan hogaamiyaha cusub inuu ka adkaan doono Israel iyo Mareykanka. Hambalyo ayaa marka hore loo diray dowladda Iran sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Hogaamiyaha cusub ee dowladdaasi Iran ayaa la doortay maalintii Axadda ee la soo dhaafay. Mujtaba Khamenei ayaa waxaa hadda uu hogaaminaya dalkaasi Iran muddo 4 maalin ah, waxaana durba laga dareemayaa go'aanadiisa qaabkay howlgallada u fulinayaan ciidanka dowladda Iran. Afhayeenka xogaga iska cabinta ee Xamaas Xaasim Qaasim ayaa bayaanka wuxuu ku yiri waxaan rajeynayaa inuu ku guuleysto hogaamiyaha cusub fulinta himilooyinka shacabka dowladda Iran si loo jibiyo gardarrada Israel iyo Mareykanka, loogana hortago in quwadaha kibirka badan ay rabitaankooda ay ku qasbaan dowladda Iran. Hadalkaas ayuu adeegsaday. dhanka kale bayaan ay soo saareen xogaga Islamic Jihad ee Falastiiniyiinta ayaa iyaguna waxay soo dhaweeyeen magacaabidda hogaamiyaha cusub ee dowladda Iran Mujtaba Khamenei, waxaana ay sheegeen dhammaan dadka xorta ah ee dunida garab taagan yihiin dowladda Iran. waa bayaankii ugu horreeyay oo xogaga iska cabinta Xamaas ay soo saaraan tani markii dagaalka uu bilowday kuna wajahan dagaalka ka dhanka ah Israel iyo Mareykanka. dhinaca kalena wararka soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Israel ay dhaqaajisay gootada lagu magacaabo Golani. gootadan ayaa la sheegay in loo diray dhanka iyo xadka Lubnaan. arrintan waxa ay ka dambeysay kadib markii taliyaha ciidamada Israel Eyal Zamir uu warbaahinta ula hadlay, waxaana uu sheegay gootadan dhanka dhulka ah in howlgalla halkaas ay ka fulinayaan, waxaana ay ka qaybgali doonaan howlgal qorshaysan oo Israel ay doonayso gudaha Lubnaan inay ka samayso. toddobaadkan ayaa ciidamada Israel weerar adag waxay kala kulmeen xogaga Xisbullah kadib markii ay isku dayeen weerar dhanka dhulka inay ka fuliyaan bariga dalkaasi Lubnaan. Hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iran ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadleen macluumaadka ku saabsan dhaawaca Mujtaba Khamenei kadib markii aan idinla wadaagnay barnaamijkii kan ka horreeyay. warbaahinta oo idilna ay hadal haysay duqeyntii ugu horreysay oo Israel iyo Mareykanka ay ku bartilmaameydsadeen magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iran ah.
warbaahinta Mareykanka ayaa si weyn waxay u baahinaysay macluumaadkan waa tii aan idinla wadaagay inaysan ka hadlin xitaa mas'uuliyiinta dowladda Iiraan laakiin hadda waxay yiraahdeen waa uu caafimaad qabaa wax dhaawacna ma uusan soo gaarin. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. ma doonaysaa sidaan oo kale in waalidka looga cumreeyo? halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa. shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay Almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo.